nin u haystaba inuu yahay tiktoker dhaqaale lagu siiyo difaaca dawladda kaliya mas'uuliyaddu uu haya gabay inuu maalin kasta inoo soo jawaabo adinkuna maxaan ku raahdaa dhaqaale uu ka sameeyo dhulkii iyo maxaan ku raahdaa hantidiina uu ka sameeyo inaan daawano aan fiirsano caadi nala ahaataa adinka iyo shacabweynaha iyo annagaba runtii waa musiibo dawladnimadana ay ku baabay isku wada burburayso waxaad ogaataan dulmi kasta haddii kan la dulmiyey iyo kuwa kale dariska la ee la nool aysan ka dhiidhiin dulmigaasi kuma ekaanaya kan sameeyey kaliya ciqaabtiisa ilaahay kuma ekaanaya ummadda dhan ay camimaysaa waa xaqiiq wax soo dhacay waaye waa la yaqaanaa waxaan rabnaa marka annagu waxaan diyaar u nahay oon maxaan ku rahdaay idinku horkacaynaa inaan xaqeen iyo xaquuqdeenna iyo ku takarfalka awoodda iyo ku tumashada iyo xagga iska dhigid dastuurka oo maxaan ku rahdaay dawladda hoggaankeedii ay hormuud ku yihiin ka hortageeda iyo maxaan ku rahdaay meel iska saarideeda inaan ku horkacna diyaar u nahay waa qodobka labaad waxaad ka dhawaajiseen noolana sheeg haddana markaad noo imaanayseen meel aad ku hadashaan inaad weyseen meel kastood ku ballantaan xataa goobihii laydinka burburiyey markaad u tagtaan xabad dabada laydinka gelinayo maxaan ku rahdaaye wixii ku dhiman ku dhintaa xabad laydinku furaayo runtii meesha aan joogno iyo dawladda aan joogno iyo qarniga aan joogno ma naqaan waxaan rabnaa marka xaqan u leenahay dastuurkaasa dawladdaas waajibaadka iyo xasaanadda u ogolaadaya inoo siiyey wixii maanta ka dambeeyo inaan annaga gacmeena ku doonano madaxweyne xasan maanta hadduu damiir shaqaynayo oo shicibka damiirkooda nool yahay hay-ado dawli oo kala madax bannaano isxisaabi ay jiri lahaayeen maanta inuu dhul dumiya iska dhaafo inuu madaxtooyada sii fadhiyo maysan ahaateen sidaa la ajligeed waxaan insha allahu tacaala ugu baaqaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan asigaa soo diray asigaa ka mas-uul ah asigaa dhulkan loo gadaa asigaan lacag ka hormarsado lacagahaasna hal lacag oo qasnada dawladda ku dhacda ma jirto waxaad aragteen doodii daraad miisaaniyaddii xisaab xirkii 2024 dakhliga soo xarooday miisaaniyadda 2025 way noo soo socotaa meel ay kaga jirto dakhli dhul dan guud oo la gaday oo soo xarooday qasnada dawladda ku jirto ama dakhliga kaga jirtaa ma jirtaaba yaraatee ogaada marka waxyaabaha noocaas ah wax caadi ma aha dawladnimaduna markay dariiqa saxda hayso xurmo iyo la shaqaynay leedahay iyo mahadnaq waxay wanaagga samayso dariiqa sharciga ee ka leexatana cidda laga rabo inay ku soo celiso dawladnimada ay ka bilaabato kuna dhammaato waa shacabweynaha waay adinka aad hormud u tihiin waay walaalayaal waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala jeesow suu u sheegay walaalkay xisbiga himilo qaran iyo hoggaankiisaba waxay heelan u yihiin inay u dhiidhiiyaan una istaagaan sida xaqiin u heli lahaydeen waxaan kaloon u heelannahay garabna inkugu nahay insha allahu tacaala maalinka ay noqotaba in lala xisaabtamo cidda waxaa idiin geysatay xaqiina